السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مسلمين الصوماليين meel kastoo joogteen walaalayaal aad baa idin salaamay waxaan ugu soo aadan insha allahu bishii barakeysneeda ramadaan ilaahay subxaana watacaala nabad ha nagu gaarsiiyo walaalayaalow bishii barakeysanee ramadaan waa bishii naxariista waa bishii dembi dhaafka waa bishii xasuusinta iyo xusuusta ku danqashada kuwa jilicsan bisha barakeysanee ramadaan waa bil runtii ajirka la labanlaabo waa bil kheyr badan waa bil ilaahay subxaana watacaala uu noogu bishaareeyey cidduu ilaahay waafajiyo si wanaagsan u gudatay inuu kheyrkeeda helayso ballanna ilaahay subxaana watacaala u qaaday walaalayaalow waxaa jira boqolaal danyar soomaaliyeed ah oo masaakiin oo ku dhaqan xeryaha qaxootiga dhadhaab kuwaasoo aan haysanin waxay ku afuraan waxay ku suxurtaan iyo waxay isticmaalaan midna dadkan bisha ramadaan ka horba waxay la dala dhacayeen dhibaatooyinka nolosha sida cunada ku yar biyaha oo gabaabsi ah hoyga ama gogosha iyo musqulaha oo aysan lahayn waa dad muslimiin oo dar ilaahay u soomaya balse ma haystaan waxay ku afuraan iyo waxay ku suxurtaan midna sanad kaste bisha barakeysan waxaa jiri jiray dad muxsiniina oo dar ilaahay dadkaas uga danqada kuwaasoo caawiya islamarkaana dad badan ay indhaha u kala qaadaan sanadka 2025 waxay ku soo aadaysaa bisha ramadaan ee barakeysan xilli xaaladda nololeed ee dadka soomaaliyeed ku dhaqan xeryaha qaxootiga dhadhaab ay aada u adag tahay xilli dadku aysan haysanin waxay cunaan waxay isticmaalaan cunaduna ay aada ugu yar tahay sidoo kaleeto ay jiraan qaxooti badan oo cusub oo dhowaan soo galay xeryaha aan waxba haysanin dadka soomaaliyeed meel kastoo joogaan rag dumar culimo iyo caamo waxaan walaalayaal idinku baaqaynaa ama idinka codsanayaa sidii aada u caawin jirteen dadkeena soomaaliyeed ee weliba ku dhaqan xeryaha inaad u caawisaan inaad sanadka kasoo farxisaan inaad masaakiin badan u danqataan inaad dar ilaahay usoo caawisaan waayeelka dadka naafada ah caruurta agoonta bulshada jilicsan qaybahooda kala duwan waxay ka warsugahayaan jawaabtiina soomaalinimo danqashada bini-aadamnimo damiirka soomaalinimo naxariista dar alla ah waa midda ay soomaali caan ku tahay qof kastoo soomaaliyeed oo muuqaalkan uu soo gaaro waxaan ka codsanayaa inuu sii faafiyo inuu sii gudbiyo inta bisha ka dhimanna insha allahu aan diyaar garowno bishu markuu ilaahay subxaana watacaala nabad nagu gaarsiiyo cimrina siiyana aan ka faa'iidaysano dadkeena aan caawino walaalka iyo walaasha soomaalida ee daawanaysaay dadka aan u cabanayno ama aan leenahay hala soo caawiyo idinkama xigo qaraabanimo iyo sokeeyanimo iyo reheebelnimo midna ooguma idinkuma baaqahayo waa dad soomaaliyeed aniga daris baan laahay waan ka dhex shaqeeyaa waan dhex joogaa 24 saac bay cabashadooda iyo baahidooda iyo tabashooyinkoodii soo gaaraan waxay iga codsadeen iyadoon bisha ramadaan la gaarin ay fariimo iyo codsiyo badan ii soo gudbiyeen in bishan aan la hilmaamin walaalayaalow qof kaste oo soomaaliyeed oo wax awooda dadkana waxa ku soo taro barnaamijka afur walaalka oo 12 sano in ka badan aan soo wadnay wuxuu galay sanadkiisii 13 buu galay dad badan baana ka faa'iideysta walaalayaal waxaan ka codsanayaa meel kastoo joogtaan barnaamijka afur walaalka xeryaha qaxootiga inaad kasoo qayb qaadataan muhiimaddu maaha inaad aniga ila soo xiriirtaan muhiimaddu maaha inaad aniga wax iisoo dhiibtaan muhiimaddu waa in dadka la caawiyo dadka aad taqaano kuwa dariska la ahayd ama la tahay ehelkaada iyo asxaabta aad leedahay ayaad u soo marin kartaa adigaa imaan kara adiga wax u keeni kara walaalayaalow qof kasta wuxuu awoodo dadka ha ku soo taro waa mas-uuliyadna saaran oo garbaha naga saaran inaan dadkeena caawino qof kastana waxa uu awoodo dadka ku caawiyo $1 $2 $3 dad bay u tahay wax weyn aan wax isku dardarno oo weeraano qof kaste oo soomaaliyeed ha isku dayo inuu qof afuriyo ama ka farxiyo walaalka iyo walaasha soomaalida ee daawanaysaay yaanan bisha ramadaan markii la gaaro ku xisaabtamin keliya biilka reerkeenna inaan anagu dharagno inaan adeegyo soo qaadano waan ognahay bisha markii la gaaro ramadaan adeegu wuu 2-3 jibaarmaa biilku waa u bataa adiga walaalka iyo walaasha soomaaliyeed ee daawanaysaay ha ka fikirin qoyskaada keliya ha ka fikirin adiga naftaada keliya
ku fikir inaad naf kalena wax tarto dadkaas Soomaaliyeed aan wax soo tarno muuqaalkan aan sii faafino aan sii gaarsiino dadka Soomaaliyeed khaasatan waxaan fariintan u dirahayaa dadkii Soomaaliyeed ee xeryaha ka dhoofay ee qurbaha jooga ee garanhaya xaaladda iyo nolosha iyo bay'adda ay dadku ku nool yihiin walaalayaalow xusuusta xilligii aad xeryaha joogteen ee ayna waxba haysanin ee noloshu adkayd xusuusta xilligii gaajada iyo afur la'aanta iyo macaluushu ay jirtay ilaahay dartii dadkaas ugu soo naxariista soo caawiya walaal dadka Soomaaliyeed aan u naxariisano walaalayaalow aan isku naxariisano waxa aan 32 sano dawlad la'aanta ahayn aan wali u dhaqanahay waa sidaqada naxariista ee iscaawinta isku danqashada waxaan filayaa biidnillahi alkariim markii la gaaro bisha Ramadaan inay dad badan ka soo qayb qaadan doonaan dadka soo caawin doonaan waan sii wadi doonaa wacyigelinta iyo baraarujinta inaan hawlahan gurmadkaas sii wadno waa walaalkii wariye Soomaaliyeed Maxamed Baaruud Xuseen gobolka Waqooyi Bari xeryaha qaxootiga Dhadhaab Allah idin barakeeyo Allah idin sharfo ilaahay subxaanahu wa tacaala qofkii dadka ka soo farxiyo Allah ka farxiyo qurbada adduunka iyo mid aakhiraba Allah ka faydo ilaahayow qof dadkaadan dhibaataysan ee gaajaysan adigu waxba oo maada weynin kamana fiicnin nagamana xumo waa imtixaan iyo xujo kuwii xujadaas ku guulaysta oo walaalada u naxariista Allah naga dhigo aad u mahadsantiin walaalayaalow Allah idin sharfo asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh